marka laga reebo tiro yar inta badan qof waliba waxa uu leeyahay laba keli sida caadiga ah waxa ay ku yaalan keliyuhu dhinacyada lafta dhabarka dhamaadka feeraha ama qaybaha hoose ee feeraha marka qaar waxa dhici karta in labada keli hal dhinac ku abuurmaan ama mid kamid ah ay ku abuuranto kafka ama gumaarka waxa kale ah ee lagu xaqiijin karo ama lagu ogaan karana waa kombiyuutarka uur ku jirta lagu ogaado ama waxa dhici karta in hal keli kali ah uu yeesho qofku kusoo dhawaada mar kale iyo mowduuceena maanta oo aan uga hadlayno dhagxaanta kaliyaha waxa sababa iyo sida lagu xaliyo sida aan wada ognahay keliyuhu waa xubnaha qashin saarka ee jirka haddii aysan si wacan u shaqeynna waxa dhacaysa ama dhici karta in nolosha qofka ay halis soo wajahdo waxa kamid ah qataraha soo wajihi kara qururuxa ama dhagxaanta kaliyaha ka buuxsama sababaha dhagxaanta kaliyaha dhagxaantu waa macdanta iyo cusbada jirka oo isu tagtaga iskuna dhiga ilaa ay dhagax noqdaan gudaha kaliyaha halka qashin saarka ama kaadida in laga soo saaro dhagxaantu ma saameeyaan kali ah kaliyaha laakiin waxa ay bedelaan laga soo bilaabo kaliyaha ilaa afka kaadidu ka soo baxdo waana dhammaan kaadi mareenka marka dhagaxu abuurmo kaadiduna ay marayso duleelka dhagaxu xiray waxa uu dareemi karaa qofku kaadida oo xanuujisa si dirqi ahna ku marta duleelka haddii uusan qofku helin daweyn wanaagsanna waxa dhici karta in xaalad adag la soo diristo caabuq badan oo ku abuurmo qaybaha kala duwan ee kaadi mareenka ugu dambeynna waxa uu u baahan karaa qofku qaliin calaamadaha dhagaxa kaliyaha xira dhagaxu ma lahan wax calaamad ah ilaa uu ka dhaqaaqo meesha uu ku abuurmay iskuna aadiyo duleelka kaadidu ay ka soo baxdo waxa kale oo qofku dareemi karaa dhabar xanuun ku faafa caloosha ilaa feeraha qaybtooda hoose xanuun xilliga kaadida oo kalarkeedu isbedelo urta kaadida oo isbedesha lalabo iyo matag dadka khatarta ugu jira xanuunkan dadka ugu badan ee halista ugu jira waa kuwa aan cabin cabitaanka aadka u badan waxa muhiim ah in qofku cabo biyo asagoo aan u baahnayn si uga hortago dhagaxa ku abuurmi kara ama ka abuurmi kara macdanta uu qaato isla markaana u helo meel wanaagsan daweynta dhagaxa kaliyaha waxa ugu muhiimsan waa in qofku 3 saacaba mar biyo cabo qiyaastii maalintii waa inuu cabaa qofku 2 ilaa 3 litir oo biyo ah si loo dhaqo dhagaxa haddii ay suurtagal tahayna uu banaanka u soo baxo qaadashada dawada xanuunka yareysan noocyadeeda kala duwan takhtarka ayaa bukaanka siiya dawooyinka lagula dagaalamo dhagxaanta kaliyaha iyo kaadi mareenka kuwooda ku haboon ugu dambeyn haddii dhagxaantu ay aad u waaweyn yihiin isla markaana dawada ama biyaha aysan xalin karin waxaa lagu soo gabagabeeyaa dhagxaantana meesha looga saaraa qaliin waa mahadsantihiin